السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبايبي في الله، ويلكم تو نيل جنال. حبايبي waxaan rabay maanta inaan ka dabageeyo cashar inaan macnaa waxyar inay macnaa inay ka faa'iideeyo. Ma aha markasteeto inaan maaragtay aan ka sheekaysano inaan macnaa aan soo gelino waxyaalaha wejiga lagu qurxiyo, waxyaalaha wejiga lagu nadiifiyo. Laakiin waa inaan markasteeto macnaha haddana advice-ka waa wax loo baahan yahay oo qofka bini'aadanka uu ku nool yahay, ama talagelinta ama wacyigelinta. horta axbaabi inta badan gabdhaha aniga aan caawiyo boqolkiiba 70 waa gabadha haara leh, ama gabdha maxaan ku sheegay leh nabro, ama gabdha haysta guduud. saddexdaas aan markasteeta caawiya. ani gabdhaha caawiya ayagaa u badan. gabdhaha aan wax u qabtay oo maasha allah maanta maxaan ku sheegaa aad ugu faraxsanahay, ayagana aad igu faraxsan oo maasha allah tabaaraka allah aan waxtarkooda iyo si wax u qabsadeen iyo waxay heleen faa'iidada ay heleen aan aad ugu faraxsanahay. waxay u badan yihiin gabdhaha haaraha iyo gabdhaha guduudka, alxamdulilah. okay, maxaa gabdhaha marka qaar waxaa jira sometimes gabdhaha inta badan hadda wixii gabdhihii hore igu soo biiray ilaa 2 sano ka hor, ilaa 2 sano ilaa 1 sano way yaqaanaan. waan caawiyaa, waan u sheegaa, talagelinta wacyigelinta waan siiyaa. laakiin gabdho waxaa jira maasha allah gadaal igu cusub oo markasteeto macnaha aan la soconin waxyaalaha aan ka hadlo. weligeena sidaan oo kale intaan soo fadhiistay waxa fiican iyo waxa haarta u fiican iyo waxa guduudka u fiican kamaan hadlin inta badan, ilaa inaan cajalad soo geliyo oo cajaladaas aan dhex geliyo maahaane oo dhaho cajaladan saas u marsanaysiin saas. laakiin caawa waxaan wadaa waa talo macnaha aan siinayo gabdhaha. awalan horta gabadha haarta laan ka horeynayaa. gabadha haarta leh markii axbaabi ay haar leedahay guduudna leedahay waa labo hadday israacdo. guduud iyo haar hadday israacaan ma goyn kartiin haarta. ma laga yaabo inay haarta kaa go'do. haarta way kugu ooleysaa. leila maxaa keenay wax kasta oo haarta lagu gooyo ama caqibo kasta oo haarta looga hortagi lahaa iyo dagaal kastood la geli lahayd waxaa kasoo hormaraya wejiga guduudna. wejigu wuu xanaaqa, wuu guduudana, waxba ma marin kartiin. kow waa inaa wejigaaga guduudka ka bi'isaa. guduudka markaad bi'iso oo wejiga aad guduudka ka qaado kabacdi baad waxaad u tilaabi kartaa inaad haarta qaado. laakiin ma dhihi kartin adoo guduud haysta haaraan qaadaa, mana qaadi karin, mana isku taxallujin karin xataa inaad qaadin. kow mid waa midaas. midda ah guduudka say u qaadaa. guduudka waa 2 nooc, 3 nooc waaye, laakiin mid kuma dheeraanayo, laakiin 2 ku dheeraanaya. 2 waa guduudka. mid waxaa waa mid uu kiimikadu keentay, midna waxaa waa midka xasaasiyad keentay. guduudka haddii uu maxaan kuu sheegaa axbaadii uu way guduudkaaga hadduu bato oo wejigaaga uu kululaado. hadda gabdha waxaa la kulmaa markasta isoo waxa ama ismaqala ama inta badan guduudka uu ka ba'ay markay saliideydaan isticmaaleen. maasha allah aad uga faa'iido guduudka maalinta marsanayba markaan wiig wadna 2 wiig wadna naga ba'ay dhahay. guduudka haddaa iska gaarinin ama aa iska daaweynin dhibaatada guduudka uu hadda markaas kugu hayo dhibaato ka weyn kuu keenaya. taasoo ah 2 daan markaad ka kululaato markasta gabdhaha waxay isku dayaan inay biyo ku shubaan, inay barafka la soo baxaan frinjeerka, inay meel qabow aadaan. meel 2 qof fadhida ma fadhiisan karaan, meel buuqa ma tegi karaan, meel maxaan ku sheegaa dad qaylo iyo ma geli karto iyo macnaha dood. wejigii dhan wuxuu noqonaa wuu xanaaqa, wuu guduudana. weji qofka la wejiga ka guduudana waa ceeb. soo marka taas horta waa mid oo taas waxaaba ku dilaya cuqdad nafsiga ku dilaya. meel kastoo aad tagto marka wejigaaga guduudan alla way iscadaysatan waxay marsatay dadku ku mashquulayaan. midaas waa midaas horta waxaa u dhimanaysaa maanta oo dhan muraadi inaad ku ararto marba wejigaaga jikanto. kow midaas waa mid. midda labaad uu ku keeni karo waxaa waaye oo dhibka ugu weyn uu ku keeni karo meeshii way guduudane. marka dambe waxaa koraya qolof, waxay noqonay haar, way isbedelay meeshii. marka isbedesho 2 dhinac waxaa kaa koraya jaantaasoo wax madow oo kaaga dhigan aa iska fujin karinin. haye markaas maxaa ku haysta jaantii madoobeyd, wixii madoobaa oo dhibicdaheeda madoobeydna waad haysataa, guduudkiina waad haysataa, 2dii borobalenba waad haysataa. maxaa samaynaya marka? haye ma haartaa ka fakertaa mise guduudkaa ka fakertaa? guduudkii iyo haartii adoo waxaa la ano ooyaayay hooyadeeda la yaab, aabahayga la yaaba maysa, awogis la igu darmiyahayd, anoo qofkas la yaabana qofkas la ii keen. hadda adooba la yaabanaaba guduudkaagii oo la kurbaysnaa haar kuugu sii darsantay. maxaa samayn kartaa? optionka aad samayn karta maxaa waay marka? option qaldan ha samaynin.
kareem baakad ku jira ha raadsanin balaayo la soo qasay ha walaaqanin raadso daawada kugu dhow oo markaas ku xallin karta oo kaa bi'in karta whatever ay ahaato ama cadaan ka hel ama gaal ka hel ama soomaali ka hel ama muslim ka hel meesha harta haata laakiin waxaa raadsataa really wax ah oon waxba ku keenayn oo horta kow gudud kaa qaada markas ka bacdi waxaad u dhaqaaqdaa haarta inaad qaado waa haddaa rabto gabaray inaad iska qaado dhibka wejigaaga saaran iyo daaxa saaran ee iska faydo mid waa midaas midda koowaad midda kaleeto oo labaad aan ku daray waxaa waaye gabadha ayadoo haar leh ama guduud leh ama waxba aan lahayn qoraxda uma bixi karto ifan qoraxda iska daaya banaanka uma bixi karto ayadoo waxyaalaha qoraxda loo isticmaalo aan isticmaalin gabadha waxay ku dhahday yaan horeeto maasha allah qofku markuu dumar badan yahay oo macnaha dad badan yahay oo asxaab badan uu caawiyo wax badan oo la kulmaaya waxay dhahday dhakhtar aan u tagay hadda kahor wuxuu idhi tiri haaraan lahaa wuxuu dhahay ma isticmaashaa waa dhakhtar maraykana ma isticmaashaa ugu dhahay tiri waxyaalaha qoraxda la isaga difaaco maya iray tiri wuxuu yidhi haddaa isticmaalinin adoo haar leh ama lahaanin haddaa waxyaalaha qoraxda la isaga difaaca isticmaalin oo dhahay ama meelaha kuleylka laga marsado adoo wuxuu yiri hoos u socotin hada bilitalan guri dabaqaa soo kortay waxaa hartaa jaranjarta intaa kortay inaad hoos aado koraa jaranjarta u kortay ma soconaa u dhah macquul ma noqone hoos hartaa inaad u degato laakiin koraa aade wuxuu dhaha waa saas wuxuu yiri waa mamnuuc markastana macallimiinta caafimaadka dhaqaatiirta kulli haddaa laha aragtid qof aan haysanin qoraxda waxyaalaha la isaga barti karaayo oo laga marsado karaamka inta badan gabdho waxay dhahaan allergian ku noqona laakiin saliidaha hadda gabar yurubtaas degan wad magaalada degan tahay hadda ma sheegaaye oo first customerkayga ahayd ayaan dhaweyta iga dalbatay meelaan ka shaqeeyaya tiri gabdho badanaa kasoo celiya feedback horta reer maraykan subxaan allah markay tagto maba taalaba 3 days 4 days ma taalo horey ka dhamaystaan gabdhaha leela meelo kulay ka shaqeeyaan gabdhii dhan waxay dhaheen markaan marsanay maaskadiina xiranay ayada marsano wejigeena waxaan soo noqonaa asagoo maasha allah daadaxa od moodinay dhaheen maanta oo dhan inuu ku dhici jiray biyo awalna waxay dhaheen asagoo gubtay oo kabla gediyo imaan jirnay ma fahanteen horta gabdhaha maraykanka halkaasayba maraayaan iska badaa laakiin maxaa soo haray gabar maaloyti gabdhada feedback cajiib kasoo celiyay gabar waxay tiri والله waxay tiri markaan shaqada marsaday tiri subxaan allah gurigeyga waxaan imaaday tiri anigoo admalaysay tiri maantoo dhan inaan meel ku jiray tiri ana waxba qaban labeenta iyo quruxda iyo leeshta ka muuqatay tiri saliida I can't believe it illa dadka ajnabiga aan la shaqeynay ay fahmeen ugu dheertay maxaa maris wajigaaga gabar kale saas oo kale ayadana waxay dhahday subxaan allah ma baadi karo shaqo outside ma u bixi karo gabdhihii Soomaaliya jooga iyo Afrika iyo Kenya iyo Soomaaliya iyo Afrika jooga maxaa moodaa kareemka u adagaa la marsanaa kiimika ugu adagaa la marsanaa qoraxdaa la isdhigaa gabadhaan waxay ku leedahay waa ma cadaado ma qurux badnaana maxaa haarta iga soo baxday muxuu wejiga ii gudutay qoraxda ilaahay keenay oo dabiiciga oo vitamin D-ga laga helo vitaminada laga helo aa lagu dhahay iska difaac wejigay kaa gubaysaaye korka kale u baahan leh wejigaaga waa inaad wax ka marsataan ama kareemka qoraxda ama saliidda qoraxda waa inaad heshaa maxaa moodaa intaan oo kiimiko bac lagu walaaqay ama balaayo lagu shubay intaa marsata markaa tiraahdo waa iska dhaqaaya magaalada aada adoo waxba wejigaaga ku cover garayna waxba wejigaaga marinin xabaab indhaha fura gabdhaha waliba Afrika jooga gabdhaha meelahan kale jooga maxaan ku sheegaa xogaa iska babaashaali karaan oo wadankooda uu qabow yahay laakiin gabdhaha Afrika jooga subxaan allah wejiyadiina usoo jeesta kow horta kiimikada alxamdulillah hadda waxaan ku faraxsanahay inta gabar oo yar oo yonga oo 30 sano gaarin oo ila soo xiriirtay weekend gudihiisa oo uga tir maalintaas liidaada bartaan kiimika dhaafay wallahi you can imagine waan dhaafnay dheena ilo kareemadii markaa marsanayna waaba kasii darna qurux saliidihiina quruxay naga dhigeen tan qoraxda hadda hargeysa ma taalo waan u dirayaa insha allah xamarna ma taalo soomaalida kale dhan ma taalo soomaaliya dhan ma taalo haddaan diraa laakiin insha allah hargeysa waan u diri doonaa laakiin waxay taalaa kenya way buuxdaa qobadhi kenya joogta way ka faa'iideysan kartaa qoraxda looma marsado qoraxda banaanka markaad aadaysa bas populationka banaanka hawada kasoo dhacaysa waxa warshadaha kasoo baxaya kiimikada socoto oo qiiq iyo waxyaalaha baabuurta qiiq waxaasoo dhan wajiga bedela kaas markaa baxaysa wajigaaga ku masaajayne dhac waa tartiib 1 hour intaa bixin ka hor ee magaalada aadinin aa marine
وكم مساجينه وجهه ولا قايا فينش وجهه سليل هين أو فينش أمجال هذه ولا قرح ولا كلول ولا هيد ولا بقى تكتو حتى وحكام ما يسو قبل حتى وحد محن كل شيء إن ريجل وجهه نجدوتي وحاليا وامرنا meelahan rabno markaan rabno inaan tagno wajigan ku marina saacad ka hor wuu liqaa xijaabkeena xirnaa meeshaan tagnaa ka anay weligeed mabana guduudanayo guduudka xataa way kaa difaacaysaa way kaa celinaysaa tanna maasha allah midda gabdhuhu ay ka cawdi bilaysteen waayo ay dhaheen 1 week gabar kasta oo isticmaashay 1 week kuma qaadan 2 weeks gabar kasta waxay ku leedahay xasaasiyad oo ka qubaysti subxaan allah marka axbaabi caawa afayskaasaa inay waday inaa wejiyadiina ka fakartiin kow adinkoo haar haysataan inayna dhihinin guduud adinkoo haysatiin haaran qaadaya iyo inayna bixin qoraxda adinkoo iska difaacin wejiga aad iyo aad u mahadsantiin axbaabi insha allah cajaladii waa continuous waa inii soo wadaa xogaa waa mashquulkayga ugu batay aanteena ila youtube aad iyo aad macnaha gaab weyn iisoo galaya markasta caruur iyo gurigii noo jooga lockdownkii ilmihii guriga wax lagu baraayo wixii dhana waxay noqdeen maasha allah mashquulkayga batay marka hala ii cuddaaro insha allah waan soo gelin doonaa cajaladihii waan isla socon doonaa saliidan aniga waa laga heli karaa كينيا ولا هيك كلام مالك لما تعالوا لكن صوماليا مقدشنا وأدرايا هرجيسنا وأدرايا إن شاء الله بشان أذيك الحديدة أنا سلسة عنه حبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.